iyadoo maanta laga ciideeyo dunida islaamka ayaa waxaa qayb ka ah Soomaalida Koonfur Afrika kuwaas oo isku soo baxay barxadaha waaweyn ee ku yaala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa la arkayay Soomaalida iyo muslimiinta ku nool South Africa oo isu hambalyeynaya farxadda ciidda iyadoo TV-ga caalamiga Universal uu fursad qaali ah siiyay Soomaalida South Africa si ay ehladooda iyo qaraabadooda u la wadaagaan farxadda ciidda haddaba Soomaalida maanta salaamay ehladooda iyo asxaabtooda iyo dhammaan ummadda muslimiinta ayaa waxaa ku soo darin doona insha Allah barnaamijka salaamaha ciidda oo aad ka daawan doontaan dhawaan TV-ga caalamiga Universal ما شاء الله وعالك كسلام يا مسلمين دمان عليه عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال قارن سوماليدا عيدكم عيد الله فرحتكم عيد إن شاء الله همبلي sidoo kale dhammaan Soomaalida meeshaan ku dhaqan Cape Town meel walba joogta caalamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed muslimiinta ciid wanaagsan dhamaantood ciid wanaagsan waclan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعبد الرحمن حسن علي وحن سلام يا أمد المسلمين تميلوا بيجوكتوا كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم السلام عليكم كل عام وأنتم بخير عيد وناكسن عيدا إلهي سما الله نقرس إن شاء الله وعقران لا هاي Soomaaliya waxa uu soo ifaysan dawlad qarana oo naqad ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada ka bixisa Allah ka dhigaan leenahay وأنتم بخير عيد وناكسن waxaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ugu hambalyeynaa ciid mubaarak aan leenahay ciid mubaarak haddaan nahay dadka ku nool jaariyadda South Africa si kastaba ahaatee Soomaalida Koonfur Afrika ayaa isugu soo baxay barxadaha waaweyn ee ku yaala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika محمد داق موسى النور داق درجو Universal TV South Africa